halkani waa Faris TV oo aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geeyiga Soomaalida degta kuwooda ugu xiisaha badan. Qodobada ugu doorka roon wararka aan idiin haynana waxaa ka mid ah Mustafa Cagjar oo la sheegay inuu aabihii xaar cunsiyey. wasiirro ka mid ah xukuumadda Mustafa Cagjar oo raba inay Jabuuti ka baxaan. ciidamo gadoodsan oo ka soo goostay galbeedka gobolka City. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe sar gambaleelka furo videogana like ku qabo share dheh asxaabtaada la sii wadaag wixii kala bixinayna xagga hoose nagu reeb ku soo dhawaada qodobadii wararka oo faahfaahsan. wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwo Yusuf. بروتوكولكي هوري مدحوينها دولة ديانك الصومالية مصطفى عكشر أهانا تشاتشوسكي جيتاتشو أصفة دولة ديانك الصومالية وعبدي إلي كعيري مغالة جفتيا أيا عبدي حلقي وابي ليمد حزبي بيبي مامولة ديانة لغا أنسحيني إنو أبي أحمد حار عنسيي آلان فرح أفايانك قولها فدريشن كدلك إثيوبيا iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar kadib markuu aabihii ka dareemay inay meel marinta xisbigan ka cagajiidayaan isla markaana uu arkay inaysan Soomaalida ka dhaadhicin karin sidaas la adligeedna uu koob xaar ah khasab ku siiyay aadan farax kadibna uu Mustafa Cagjar u yeedhay isna uu fijaan xaar ah dirqi ku siiyay isagoo aabihii dhinaca Mustafa istaajiyey afar askari oo xoog badan oo ilaaladiisa ka mid ah. intaasoo keliya kuma koobnayn sheekadu ee labadoodaba intuu qaawiyey ayuu garaacay waxaana laga duubay muuqaal midba mar ah iyagoo xaar cunaya iyo iyaga oo qaawan oo la garaacayo labadaba. Cabdiqaadir Bisle wuu dul marayaa sheekada oo usha kuma uu dhufanayo laakiin marka aad dhuxdo sheekada iyo qaabka uu sheegayo waxaad ogaan in waxa uu ka hadlayo yahay inuu aabihii xaar cunsiyey Mustafa Cagjar garaacay qaawiyey oo uu haddana muuqaal ka duubtay taasoo ka dhigan inuu ka jabinayo ogolaysiinayana meelmarinta xisbigiisa iyo qorshaha madhamar si ay uga dhaadhiciyaan Soomaalida. markii uu Mustafa Cagjar ka yimid aabihii isagoo fijaan xaar ah la soo lugsiiyey waxaa hoteelka hortiisa ku sugayay Cabdiqaadir Bisle sida uu sheegay. markii uu gaadhiga ka soo degayna wuxuu Cabdiqaadir Bisle ku yidhi qolkaygee kadib markii ay qolkii tageenna waa sida uu Cabdiqaadir Bisle hadalka u dhigaye wuxuu ku yidhi warigama taji maxaa kugu dhacay markii uu yidhina wuu i garaacay wuu i dilay wuuna i sumeeyey oo cunto sumaysan ayuu keligay hordhigay oo uu keligay lahaa cun wuxuuna garabkayga istaajiyey afar ilaaladiisa ka mid ah oo aad u xoog badan. Cabdiqaadir Bisle sida uu hadalka u dhigayo wuxuu isugu daray liin iyo waxyaabo kale oo uu ka matejiyey Mustafa Cagjar xaarkii lagu soo cunsiiyey madaxtooyada Addis Ababa ee Arad Kiilo. keligiina ma ahayn hogaaminta ka socotay dowladda deegaanka Soomaalida ee heer federaal iyo heer dowlad deegaan ee aabihii xaarka cunsiyey laakiin waxay ahaayeen kooxay ka mid ahaayeen Maxamed Saale madaxa xarunta dhexe ee BB-ga Soomaalida Jigjiga, Cabdiraxmaan Hurre wasiirka xafiiska horumarinta biyaha, Aadan Farax oo ah afhayeenka golaha federeeshinka ee dalka iyo madaxweyne Mustafa Cagjar. bal haddaba dhagayso oo dhuux sida ay sheekadu dhacday. adeertii la socotay waxa lagu iska taga isagii baa la haday annaga soo weynina taga baa lagu yiri staafkii iyo gawaadhidii wixii dhan waa laga soo saaray meeshii baytmangistiga waa laga soo saaray. Mustafa meesha ku haday. Mustafa kolkuu meesha ku haday wuxuu naga maqnaa 3 saacadood wiilashii staafka ay yimid way ii sheegeen waana la soo ergay saasay wuxuu dhacay mid walaal. okay anu waxaan hor istaagay hoteelka aan deganay baan hor istaagay muddo 2 saacadood ilaa 3 saacadood ku dhawaad ana hoteelka hor dhaqaaqay oo taagan
يمد مصطفى أردية قاربا وذي أفرنا ولا سودين isagoo xaaladda markaa uu ku jiray inaba aydan ku tilmaamayn de macnihii ma qiyaasi kartaa xaaladdu xilligaa ku jiray xaqiiqatan qolkaygii ugu celceliyey waxaanu raacnay liftigii nimankii wadi iyo gaadhigii wada way tegeen waxaanu tagnay qolkiisii wuxuu yidhi waa laysoo sumeeyey sun baa laysiiyey igama tajid waa siduu mustafa igu yidhi weyaan xilligii baan leen maxay waxbaan isugu dardaray waxbaan cabasiiyey xilligii baan meeshii ka matajiyey oo meeshii aacda u hayey war maxaa dhacay waan ku yidhi wixii waa laysoo dilay buu yidhi waa hadalku igu yidhi mustafa isagoo aad u rifrifan buu ugu yimid wuxuu yidhi waxaan lagu samayn caawa ma jirto waxaa intaa iga daray cunto aan arkayo inay sumaysan tahay buu cun ilahaa ra-iisul wasaaruhu يقولها عن بلا يعني أخلي سليم كوان يا بمو وحنا بستيجي ما دام أنا عارفون ولا يساقوا حبلنا وش وجهي استيجي ما كرت استيجي ده قاعد هذا بلا إلى ما علينا سو إنما نعفر إنه بيجرب تهنئين السو عنده آد وعسيين بلا عن وقول علني أوكي وحنقول عن طلع قرت كهر بحاد عاي ما كمش كاين كلبي ويرى في الفنيه وحكم وقتها إنما عادي معها حرد وجود المهم أضو وحصل لما تشرين وحكى لما تشرين كل دين اللي صوت شوية وبوها المهم يمد بكرة نشيبه نيل صوت شوية وعلي بعيد وما نحوينه دجاجك إذا كمان أنت ما نحوينها هنا فرتوانك النوع عاصم دكان كني ومن عام كل يوم قلنا السردون في توبيا si ay ugu kabjabiyaan mas'uulka ay rabaan inuu kabaqaad u ahaado iyo cidda ay rabaan inay fikradooda ku khasbaan ama ka helaan xogo ay u baahan yihiin qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Mustafa Cagshar ayaa la sheegayaa inay qayladaan u dirsadeen dalka Djibouti si ay halkaas dhuumaal uga baxaan iyagoo adeegsanaya shakhsiyaad dowladda Djibouti ka mid ah oo ay rabaan inay ka tallaabida xadka Itoobiya gelidda iyo ka dhaafka Djibouti intaba u fudaydiyaan haddaba xubnihii ay hawshaas ka howlgeliyeen toddobaad ka hor ayaa shalay ku soo jawaab celiyey waa sida warku nagu soo gaadhay waxayna u sheegeen inay soo sallaxeen waddadii ay mari lahaayeen iyagoo isku afgartay qaabkii ay Itoobiya uga bixi lahaayeen una geli lahaayeen dalka Djibouti isla markaana ay uga sii dhoofi lahaayeen dilaaliinta iyo mangadmariyada shaqadaas kala tuuraya ayaa naloo caddeeyey in lagula gorgortamay lacag xad dhaaf ah si ay mar uun Itoobiya uga saaraan wasiirada haddii ay taas ku guulaystaan oo nabadqab lagu geeyo Djiboutina inay u laba jibaari doonaan kharashkii heshiiska laakiin ilaa uusan qorshahoodu fashilmin oo laga saaro dalka Itoobiya lagana sii dhoofiyo Djibouti ciidan laba xayl ah oo ka soo goostay galbeedka gobolka City iyo aagga xuduudda deegaanku la leeyahay canfarta ee ay dagaaladu ka dhaceen oo watay laba gaadhi oo FCR ah ayaa xalay soo galay magaalada Jigjiga kadib markay u adkaysan waayeen dayaca iyo darxumada la baday iyo bahdilka gaajada oonka iyo haraadka markay ka soo baxayeen galbeedka gobolkaasi City ee ay gaadiidka soo fuulayeen waxaa isku dayay inuu hor istaago commanderka ciidanka oo Timishu la yidhaahdo balse nasiib darro uu hor istaagi waayey kadib markay qoryaha u furteen ee xaaladdu ku sigatay inay faraha ka baxdo oo uu dagaal ka dhex qarxo markay ka soo baxeen aagii ciidanka wuxuu commanderkii ciidanku soo wargeliyey taliska ciidanka ee magaalada Jigjiga kadib ciidankii goostiga ahaa waa lala soo hadlay nasiib darrose waa ka diideen intii ay dhexda ku soo jireen goob kasta oo lagu hor istaago awood ayay ku soo dhaafayeen ugu dambayna sidaas ayay Jigjiga ku soo galeen haddana markay Jigjiga soo galeen
ayaa lagu yiri dib ugu noqdo goobihiinni balse dhagaha ayay ka furaysteen waxayna sheegeen in amarkii ka horreeyay ee taliyahooda oo ay markaas la joogeen ay ka diideen iyagoo ku sugan galbeedka gobolkaasi City iyo fadhiismahoodii ugu dambeyn ciidankii oo gadoodsan waxay ilaa haatan ku sugan yihiin magaalada Jigjiga cid ay ka amar qaadanayaanna ma jirto waxaana ciidankan wata 2 shaambal oo nabaarkii ah haddaba waxaan ciidankan ku wargelinaynaa inay go'aankoodan ku adkaystaan ilaa inta xuquuqdooda loo dhamaystirayo sidoo kale ciidamada kale ee deegaanka waxaan faraynaa inay ku daydaan geesiyadan bareerahooda cadaysay ee diiday bahdilka ciidanka lagu hayo haddii kale sidaasunbay u wada bahdilaan oo xaalkooda u dayacnaan xubnaha ka midka ah saraakiisha ciidanka ee raba inay ka aargoostaan dhibaatadii uu Maxamed Xaashi Tuur u geystay ciidankana waan soo dhawaynaynaa waxaana ku boorinaynaa inaysan ka labalabeynin ka aargoosiga Maxamed Xaashi Tuur